Assalaamu calaykum. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta qaaliga ah. Halkaad naga daawanaysaan waa channelka Keydii Maal. Aad baad ugu mahadsantahay daawashada. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe taabo haddii aad hore noola joogtayna like iyo comment intaba nagu caawi. Maanta waxaan doonayaa inaan la wadaago FM WhatsApp-ka waxa uu kaga duwan yahay WhatsApp-ada kale ama featureska uu dheer yahay ayaynu eegaynaa. Ugu horreyn haddii aynu soo kicino application-ka FM WhatsApp horta marka hore waa kane. Haddii aynu soo kicino dashboard-ka ugu horeeyaba waxa uu kaga duwan yahay chat-ka iyo groups-ka iyo kala qaada. Haddaba halkan socono waxa weeyaan featureskiisa kala gudaha halkan ugu sarreysa haddii aan doorano ku qoran tahay FM mode kaynu socono waa kaas. Okay, marka ugu horeysa halkan waxa ku daala privacy and security. haddii aan isaga sida dusha u doorano halkan ugu sarreysa waxa uu ina leeyahay waxaad furtaa in la arko xilliga ugu dambeysay ama iska xidhi kartaa oo marka doonaysa iska xidho aad iska xidho qofkii WhatsApp-ka fadhiyo kuma arkaya inaad fadhiyeen kale. Tan labaadna wuxuu ku oranayaa waa disable forward macnaha waxa weeyaan qofka inaad wixii ku soo forward gareysay ma dareemayo laakiin inaad message-ka si toos ah ugu soo dirtay ayuun buu ogaanayaa. Inta saddexaad haddii uu nimadno waxaan who can call me macnaha yaa soo garaaci kara yaa ila soo hadli kara. Haddii aan dusheeda ku dhufano halkan baad kuwan baad kolba cidii aad doonayso sidii doonayso in lagula soo xiriiro aad ka dooranayso. Tusaale ahaan kan kood waxa weeye everyone macnaha waxa inta kood qof kasta soo garaaci kara oo qof kale ila soo hadli kara. Macnaha qof kasta ama hay save gareysnaado ama user save gareysnaano. Tan labaadna waxa weeyaan my contacts macnaha dadka aniga save gareysan oo kaliya contacts-kayga ah ayuun bay ila soo hadli kara. Tan saddexaad waxa weeyaan dadka save gareysan baa ila soo hadli karo marka laga reebo qof save gareysan oo aanan doonayn in ila soo hadlo. Macnaha dadka save gareysan hal qof ma iska xidhi kara si aan ila soo hadal. Tusaale haddii aan iyada doorano oo aynu furno halkan waxaad ka dooranaysaa markaa qofkii aad u baahnayd inaad maxayday iska xidho. Marka contacts-kaaga oo dhan way kula soo xiriiri karaan laakiin qofkaas uma kula soo hadli karin isagoo adana contacts-kaaga ka mid ah. Way haddii aanu nimaadno tan afraad waa select contact. iyaduna waxa weeyaan dadka ku save gareysan ayaad qaar ka mid ah dooranaysaa qaar ka mid ah iska tagaysa. Tusaale ahaan waxaan hebel iyo hebel iyo hebel ayaa ila soo hadlaya inta kale ayaa soo hadlamaysa. Marka iyana haddaan doorano dad baan ka dooranayna waxaan dhan hebel iyo hebel iyo hebel ila soo hadlaan inta kale ila soo hadlan. Tan ugu dambaysa haddii aynu doorano iyana waxa weeyaan cidina ila ma soo hadli karto walaa kuwa save gareysan walaa kuwa kale. Haddii aan halka ka soo noqono aanu nimaadno tan hoose waxa weeyaan hide view status. Waxaad ka qarinaysaa dadka asxaabtaada status-ka waxyaabaha soo dhigaan ayaa adigu eegaya haddana waxaad ka qarinaysaa inay iyagu ogaadaan waxay soo dhigeen inaad aragto. Tusaale ahaan qof saaxiibkaaba status-ka wax soo dhigay waad eegtay laakiin isagu ma arkayo inaad wixii aad soo dhigtay oo eegayeen kale inaanad wali arkin ayuu moodaya. Okay, tan ku xigta waxa weeyaan anti delete status. qof baa status-kiisa wax soo dhigay dabadeetana wixii markuu soo dhigay waxaanu doonayn bay noqday dibadna uu dhilgareeyay. Isla waqtiga uu dhilgareeyay adigu wali waad ku arkaysaa status-kiisa isagu baa dhilgareeyay. Halkan ay chat ku qoran tahay haddaynu chat waxa weeyaan anti delete message waxa weeyaan message qof baa kula soo hadlay message fariin buu kuu soo qoray fariintii markuu kuu soo qoray ayay fariintii ama uu kugu soo qalday ama fariin aan doonayn buu kuu soo diray kadibna uu dhilgareeyay. isaga xaqiisu ma ka dhilgareysmaysaa mooye adigaaga kugu soo qalday wali fariintii way ku oolaysaa waad arkaysaa. haddaynu hoos uga degno calaamadan ah show blue ticks after replay waxa weeyaan qofka marka aad replay ku gasho calaamad tayre tigtahay soo baxda inaad qarisay inaad furto. way contacts-kan eegna marka contacts-ka maxaa tahay? Contacts-ka waa sidan qofkii aad la xiriirisay waxyaabaha dhex maraya waxaad qarin kartaa calaamada blue ah ee saxda ah inuu qofku fariinta arkay oo kale waxaad qarin kartaa
calaamada yar ee second-ka tirinaysa waxaad qarin kartaa microphone inuu qofkii wax soo duubayo ama uu microphone waad qarin kartaa microphone-ka inuu wax la duubay hard typing inuu wax soo qorayso waa la qarin karaa tusaale ahaan hebel is table hebel waxba uu kuu soo qoraya taasaad qarin kartaa mar qura fariinta u soo dhacaysa tan ugu dambaysa waxa weeyaan waxaad qarin kartaa recording waxa weeyaan hebel is recording macnaha hebel waxba kuu soo qoraya taas ayaad qarin kartaa tan groups haddana nimadayna waa la mid oo groupka waad ka qarin kartaa wixii aad u baahan tahay halkaasna broadcast ay ku qoran tahay iyana sidaas la gooyaan saddexdii talaabood ee soo sheegnay umaad maraysaa intaasaan jeclaystay inaan maanta asxaabta idinla wadaago aad iyo aad baad mahadsantihiin wixii su'aalaha kale aad qabtaan insha Allah comment-ga nagu reeba aad iyo aad baad mahadsantihiin